الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد درسنا وكيل لحد وكم إذا كتابك إصلاح المجتمع وإسكالها الشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى. ححل نسو تنبيهي الحديث الثالث والعشرون حديث كاللباطن يصدحات حلق وري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال وحيري أمرنا وحو نفري النبي صلى الله عليه وسلم بسبع تضبا وحيالود ونهانا وحو نغرب عن سبع تضبا وحيالود. أمرنا وحو نفري بعيادة المريض قفك حنوصا صوبو خشديسه واتباع الجنازة هي جنازة الراعدة وتشميت العاطس هي قفك هندسي ودعين تيسه وإجابة الداعي هي قفك كويري أجيب الديسه ورد السلام هي سلامة الردين تيدي علين تيده ونصر المظلوم قفك لغاقر درين يهي وهيلين تيسه وإبرار المقسم كي دارنيي أو لو بارهنما سميو. ونهانا وحو نغرب عن سبع تضبا وحيالود عن خاتم الذهب ذهب كفراتيسه ورقه أو قال وحو يري حلقة الذهب ذهب كجرانجرتيسه وعن لبس الحرير يحريس تحرشديده أينا ورقه والديباجي iyo xariirta nooceeda jilicsan iyo wasundusi sunduska iyo walmayaathiiri xariirta nooceeda adag. xadiidkaani wuxuu ka hadlayaa waxyaalo manhiyaad oo sharcigu uu reebay iyo waxyaalo ma'muuraad oo sharcigu uu dadka faray. waxaynu xalay soo qaadanay qofka xanuunsan oo la soo booqdo iyo janaasada oo la raaco. xanuunka qofka loo soo booqanayaa qofkii soo booqanayana faa'iido inay ugu jirtaan sheegnay, kii jiranaana faa'iido inay ugu jirtaan sheegna. janaasada qofka oo la raaco meydka dhintayna way anfacaysaa, qofka raacay laftirkiisana way anfacaysaa. xalan soo qaadan waxaan saddexaad oo xala soo qaadanay tashmiitul caatis qofkii hindhisay u ducayntiisa وإجابة الداعي وحان فيليا وقضبك أفراد قضبك أفراد ونغنيا إلى إسفري كي كوباد وحوها عيادة المريض كي لباد وحوها اتباع الجنائز كي صدحادنا وحوها تشميت العاطس كان أفراد وحوية وإجابة الداعي كي يريتان كي سين لا أجيبه قفبا كو ياري ولا الكايو مسلمة وحواناغو كو ياري waa ku marti qaaday xaflad aroos buu kugu yeeray. sunnada nebiga iyo hadiga waxa weeye in la ajiibo. waxay culimmadu yiraahdaan waxa sharti ah marka la ajiibayo waxa uu kugu yeerayaa wax sax ah inay yihiin, meesha uu kaaga yeerayaana macaasi aadan waxba ka qaban karin waa inaysan macaasi ka jirin. hadday macaasi ka jirtana waxaad wax ka qaban kartid oo zuulin kartid waa inay tahay. laakiin haddii lagu yeero meeshana macaasi ka jirto xaggana aadan waxba ka qaban karin oo ka bedeli karin, aaditaankeeda markaas waxba faa'iido ku soo kordhin maayaha aadi. طيب qalbigiisa ay kabaysaa walaalka wuxuu kugu yeeray inaad ka aqbashid. waxay ku tusinaysaa inuu ku karaamaynayo qofku maamuusaya yahay oo aad agtiisa qiimo ka leedahay. dad badan buu la nool yahay adoo ka dhex doorto iimo buu ku yiri wuxuu kugu yeeranayaa waa qiimeyn aad agtiisa qiimo ka joogtid. aduguna waa inaad asaga qiimayso qalbigiisa dhowrtid. qodobka shanaad waxa weeye waraddi salaam salaamta radinteeda iyo celinteeda. in salaamta la faafiyo waxay ka mid tahay waxyaalaha jannada ilaahay loogu gala badbaado iyo nabadgelyo adoo soo maray. macnaha jannada ilaahay baad waxaad ku galaysaa salaam iyo nabadgelyo adoon wax dhibaato ku soo horeyn, adoon cadaab ku soo horeyn, adoon ciqaab la soo kulmin
بسلام وحيالها الوقلة جنة وحا كمدة إفشاء السلام سلامتا إن لفافيو وليبا قفكات قرانيسيد يكادن قرانين لبضا بالله سلام أينه التسليم الخاص وحلا يرهدان نقانايو كان أينو نقان كليا نقوني أسلانا كادا نقون هدا السلام تدا إنك دحدينا حسنا وكليا بيانا وبيحيى حساب سووا كليا بيا السلام عليكم مركات رادو كسوفير تلو حقيبك وأركتشري maxaa keenay inuu qofku sidaas isweydiiyo waxaa keenay sunnada ku dhaqankeedii baan ka tagnaa sunna caadi oo la dhaqan geliyo oo nool haday ahaan lahayd qof aad salaantay kuma dhibsadeen isma weydiin miyuu ku garanayaa maskaxdiisa dib uga shaqeeyeen oo tolo muxuu ku salaama isma yiraahdeen ee wuxuu u arki lahaa qof sunnadii nabiga fulinaya inaad tahay sallallahu alayhi wasallam waradi salaamta radinteeda qofkii ku salaama salaamta waa inaad ka qaadid qodobka lixaad waxa weeye waa nasr al-madlum qofka laga gardaran yahay inaad u gargaartid oo gacan iyo garab siisid walidaalika nabigeenu sheegay sallallahu alayhi wasallam dadka ducafada ah oo masaakiinta ah gargaarka loo gargaaro ama dulmi haystay looga gargaaro ama wax kale oo ay ku dhibanaayeen wax laga qabtaay inay kamid tahay asbaabaha ilaahay uu dadka ugu gargaaro wa hal tunsaruuna wa turzaquuna illa bi ducafaikum وما واحد أرزاق ذا كوه هشام وإلهي دين كو غرغارا كوا أن ضعفادا أيغا ماهر wax kale wax kuma heshaan marka waliga dadka madluumiinta oo laga gardaran yahay garab u noqo caawi saacidee magacanaha kaga raadin dadka ilaahay ajar iyo abaal kaga raadi qodobka ugu dambeeya waa ibraaril muqsimi qofkii dhaaranayo loo baarinimo sameey waxay noqonaysaa qof walaalka ayaa kalsooni kugu qaba wuxuu ku yiri kala maanta ila soo qaday markaasaad waxaa tiri kula soo qadayn maayo markaasuu yiri wallaahi billaahi tallaahi way la soo qadaynaysa kow u dharkasi haddaad ka diidid hadda kafaara iyo culays baa fuulay maxaa munaasab ah kalsooni uu kugu qabo ilaahay ugu dhaartay u baarinimo sameeyo raac ilaahay baan ku dhaartay caaw waxaad ii samaynaysaa waad ila seexanaysaa waa igu wallaahi waxba culays ha gelinina u baarinimo samee maamuraadka nabigeenu ina faray ay ka mid tahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu inaga reebay wanahana an sab'in todoba waxyaalood ayuu nabigu umada ka reebay todobada waxyaalood waxa ka an qaatami dhahabi qofku dahabka faraati inuu ka dhigto khaasatan ragga dumarka waxa weeyaan waa loo ogoliyay dumarka waa loo ogoliyay qodobkaas waa qodobka koobaad oo aan la ogolayn ciladana nabigu waa sheegay sallallahu alayhi wasallam oo aakhira la inoogu talagalay in lagu xaragoodo dahabkaas lama ogola inuu qofka ragga ah xirto waxa kale oo la ogolayn xalqati dhahabi dahabka laftirkiisii garaangir wareegsan oo kamid ah inuu ayadana gashada lama ogola waxaan kale oo la ogolayn waan lubsil xariiri xariirta xirashadeeda ayadana lama ogola oo raggan loo ogolayn dumarka waa loo ogol yahay ayaga waxay culimadu isweydiiyaan maadaama dumarka loo ogol yahay raggana aan loo ogolayn xariirta xaaskaagii haddaad dan ka yeelatid ayana xariir ay goglatay ku tiraahdo soo dhawow xariirtiina ay ayadoo u bannaan tahay halkaas ayada ma ugu tagi kartaa adigana xariirtu waa ka xaraan ayadana xariirtu waa u xalaal halkaan imo weeyna kugu tiri danna waa ka haysaa waad u baahanta maxaa xal la sameeyna normal see ugu tagtaa xariir ka xaraam ku dul jiiftaa xariirta ka xaraanta ku dul jiifsanaysa ya culimada qaar baa waxay leeyihiin qofta dumarka laftirkeeda ninka waxay u tahay bimanzilati firaash oo kaleeto midda kale dahabkeeda ayadoo qabtaba maadaama uu la mucaamaloon karay u banaanayd oo dahabkeeda ayadoo isku qurxisay uu galmoon karay haday xariirtii qaadatana waa sidoo kaleeto maqsuudkuna xariirtan ma ahayn reerkiisu u socday culimada qayb ka midna waxay leeyihiin maya u dhawaan maayo carradaas ilaahay oo kaleeto xalaasha ah iftiinaha ka quuto ha aado oo meelahaas kaleeto waxa weeyaan meel ka munaasabsan meesha ha fiiriyo diibaajku waa xariirta nooceeda jilicsan ayaa loo yaqaanaa xariirta nooceeda jilicsan weeyaan todobada waxyaalood ma ku dhamma halkaan oo manhiyaadka sababta waxaan aynaa dahabka oo faraati laga dhigto
ama garaangir xariirtoo la xirto diibaajka iyo sunduska iyo mayaathirta diibaajka iyo mayaathirta iyo qaybahan ka dambeeyo dhani waa isla xariirtii anwaacyadeed iyo qaybo kamida weeyaan qaybo kamida weey manhiyaadka waxa shariicadeenu reebtay inta kaliya ma aha maamuraadka la ina farayo la ina yiri sameeyana toddobadan kaliya ma aha toddoba la sheega way ka badan yihiin maadaama ay ka badan yihiin xadiidkana meesha lagu sheegay te waxa weeye xadiidkan intaas markaa nabiga loo sheegay nabiga wixii loo sheegay ummadda uu sheegay sallallahu alayhi wasallam munaasaba keeni karta may intaanu hayay arrin gooniye ku soo aroortay intuba waa suurtagal الحديث الرابع والعشرون حديث كالباتن إيا أفراد عن أبي موسى الأشعري وحل غوري رضي الله عنه قال وحيري عن أبي موسى الأشعري قال لبتش رسول الله سومي جيدان صدي يساسي قريسا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سومي جيدان وخطأ قال وحيري قال رسول الله رسولك الله وحيري صلى الله عليه وسلم المؤمن قفك مؤمن كاهي للمؤمن قفك مؤمن كاوحي كلب يعني سيدا اسمه أو كاليتو يشد وؤتك يا بعضه قاركيس بعضا قارك كالي وحوشنية وشبك وإسدحجلي النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فريه سدح ضوضة أيو إسدحجلية وسيدا سكلو النبي يرمرك رواه البخاري ومسلم حديث كان بخاري ومسلم باوريي حديث كان وحي نو فايدينيا وان كقادنينا مؤمنينتو وددان كلا مارمين اسعاويه اسكو خيران وحو نبيو تلماميا المؤمن للمؤمن كالبنيان سيدا دسمه كلا مساجد كان هذا قيبته هورو دسنيد يا قيبته هذا لا دسيبا وا دسم لا اسو جيجيي او اس هيستا haddaysan sidaas jiri lahayn dhismihiisu ma taagnaadeen miiskaani wuxuu meesha ku taagan yahay waa dhismo la isu geeyay laftirkiisu ula la isku xirxiray iyo alwaax weey saas ku taagan yahay haddii lugaha loo siibo wuu buray uu dhacaya aynaga ka muslin ahaan waxaynu xoog ku leenahay oo quwo ku leenahay oo wax ku noqonayna inaynu isbiirsanno inaynu iskaashano inaynu walaalowno sidaasaan qiimo ku yeelanayna waxa aad wax looga xumaada quwadihii waaweynaayo adduunka maanta sheeganaya in ay igu hogaamiyaan oo gaalada ahaa ayagoo kala siyaasad duwan oo kala afkaar duwan oo xataa kala diimo duwan bay waxay u diyaar garoobayaan horena qiimo ugu diyaar garoobeen inay midoobaan kaas lagu leeyahay al-umam al-muttahida kada wasi midoobayaan aynagii muslimiinta ahaana tafaraaruq waa maalin walba tasiib bilaabanaya kooxdii wada socotay bay intaas oo laamood bay sii noqonayaan haddaad u dhabagasho waxay isku haystaana wax ummad weyn oo nabigu uu ku tilmaamay kalbunyaan yashuddu ba'dahu ba'da ay ku kala tagto ma aha wax yar oo awhal asbaab oo liita oo daciif ah bay ku kala tagayaan markaas waxa la isku bixinayaa magacyo iyo alqaab iyo naynaasyo markaas la isku tiimbareeyo baadana lagu kala tagayay war waa walaalka oo waa muslim oo dadku ka xiga oo intaad ka midaysantihiin baa ka badan intaad ku kala aragti duwantihiin xadiidaya aynagoo qadaayaad ku kala duwan farci ah usuusha aan ka midaysanahay inaynu wax weeyaan ka wada socono ajiib waxa hadda wadan gaalan ku noolahay ummadda xataa culumadeeda hogaaminaysa qayb badan oo kamid ah arkaysa wala kala aragti duwan yahay wala kala fog yahay inaan la salaamin baa laga yaabaa isku masaajid lama aha wala kala duwan yahay laakiin dawladda lagu hoos nool yahay qolo walba goonideeda ula tacaamushaayo ula xiriirtaayo waxaad uga dhameysataayo inay la shiraan dhibo ma arkaan ayagu laakiin ummad ahaan inta la isu yimaado horteedkaad iska xigtaane wax wada tashada oo intaan waa ku kala aragti duwantihiin intaan aynu ka midowno caqabad baa naga haysata sheekh liira Salman Awda Allah xifdiyo xiran hadda Sacuudiga ku xiran Sacuudiyana ba hadda ka ruuxu jeedaaliyay muxaadara la yiraahdo 100% boqolkiiba boqol waaqica caalamka islaami ka jiru fiiriyay markaas wuxuu arkay qaacidadii buush oo garan meysaan oo oran jirtay imma anta kuna macana wa imma anta kuna didana ama isoo raac ama aan kala dhimanno wuxuu leeyahay caalamka islaami maanta qaacidooyinkaas ka shaqeeyay qayb badan oo kamid ah
boqolkiiba boqol waxaan qaba ila qab ama boqolkiiba boqol iga soo horjeed war waayahay boqolkiiba konton haddaynu isla ogol lahay intaa ma ku wada socon karraa maya ma wada socon karro ku leeyahay qayb baanoo ka mid a saxna maaha arrinkaas nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam baa qolyo gaalo ah oo weliba dulmi ku haysa oo dhibaataynaysa oo xaramkii ilaahay asagoo cumro gudanaya ka hortaagan baa wuxuu leeyahay wax kastoo ilaahay diintiisa lagu weyneynayay iyo xurumaadkiisa hadday ila yimaadaan waan ka aqbalaya waa gaalo maa baaluka qof muslimo walaalkaaya inaad wax la wadaagi weydid oo wada midoobi weydaan marka qofka muslimkaahi ufuqiisu waa inuu sarreeyo waa inuu sida shinnidoo kale noqdo shinnidoo kale shinnida waxaa la yidhahdaa wax wanaagsan bay cuntaa ummaddana wax wanaagsan bay siisaa hadday geedaha dul fuushana ma jajabiso say u duulaysay geed soo duldegaysaa caleentiisii iyo laamihiisii iyo mirihiisiiyo sidii ka kacaysaa ma jajabinayso adiguna qofaan culays ummadda ku hayn wax wanaagsanna cootoo cuna ummaddana wax wanaagsan u reeba noqe ummadda wax un cadow iyo balaayo cadaawad iyo balaayo ku kala dhex beera ha noqoni can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam almu'minu qofka mu'minkaahi lilmu'mini qofka kaloo mu'minkaa wuxuu u yahay kalbunyaani sida dhismahoo kale yashuddu wuu adkaynayaa bacduhu qaarkiis dhismihii bacdan qaarka kale washabbaka wuu isdhexgeliyay nebigu bayna asaabicihi farihiisa dhexdooda wuxuu tusaalaynayaa nebigu miihaal ficliyuu wax ku baraya saasuu isu dhexgeliyey bukhaari xadiidkan wuxuu meeluhu ku keena ka mid a fii saxiixihi qofku masaajidka isagoo ku jira faraha ma isdhexgelin karaa ayuu u deliishadaa alxadiidu alkhaamis waalcishruun xadiidka 25aad can inucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam mathalulmu'miniina mu'miniinta tusaalahooda fii tawaaddihim isjacaylkooda iyo wa taraaxumihim isu naxariisadkooda iyo wa tacaatufihim isu tiritaankooda mathaluljasadi jir oo kale ayay la mid yihiin ida shtakaa hadduu xanuunsado minhu jirka xaggiisa cudwun xubin tadaacaa waxaa isugu yeeranaya lahu jirkii saa'iruljasadi lahu qofkii saa'iruljasadi jirka intiisii kaleeto bisahari soo jeediyo walxummaa iyo xanuun iyo qandho rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dadka mu'miniinta ahi saddex waxyaalood buu ku tilmaama tawaadud iyo taraaxum iyo tacaatuf maxaa farqiga u dhexeeya saddexdaas eray ibnu abi jamra wuxuu leeyahaa waa isu dhow yihiin eraydaa saddexdaa tawaadudka iyo taraaxumka iyo tacaatufka laakiin macno yar baa u dhexeeya buu yidhi macnahaasu waxaa weeye wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa taraaxumka waa qaarkood qaarka kale inuu u naxariisto ayadoo wuxuu ugu naxariisanaya ay tahay biukhuwati liimaan walaalnimada ka dhaxayso iimaanka ugu naxariisanaya wax kale ugu dhimrin maayo tawaadudkuna waxaa weeyaan oo laga leeyahay inay wada xidhiiraan oo iska warqabaan xidhiirkaasoo keenaya markaas inay qaarkoodba qaarka kale soo booqdo qaarkood qaarka kale wax u soo hadiyeeyo la isa salaamo iyo waxyaalaha la midka ah qaybta ku saabsan tacaadufka qaarkood qaarka kale inuu u soo laabto oo u naxariisto cadfiga waxaa la yidhahdaa shayga la laabo maradan haddaa saa tidhahda aaniya cidfihi qur-aankaso kumaad arag shayga marka la laabo weeye walaalkaa marka waad ku soo noqonaysaa waa u soo dhimrinaysaa waad ku soo laaban asaguna wuu kugu soo laaban waad midoobaysaan awoodbaa meeshii ka soo baxaysa marka wuxuu nebigu ishaarayaa oo tilmaamayaa inay hal jir oo kale isla yihiin muslimiintu bal sida nebigu wax u cabirayo sala allahu calayhi wasalama iyo aynaga waaqiceenna isbarbardhiga waa hal jir oo kaleeto muslimiintu jirkaa xubin ka mid a hadday xanuunsato caw dhan waa soo jeedi ilig baa lagaa hayaa il baa lagaa hayaa ciddi baa lagaa hayaa jirkii kale xanuunkii kula qaybsanayo oo kula xanuunsan sidaasoo kale mu'miniintu weeye jayna midka lagu dhibayo iyo meel adduunka ugu dambaysa kuwa lagu dhibayo iyo meeshaa joogta kuwa lagu dhibayo ama isku luqad noqda ama kala midab duwanaada ama isku jinsi ahaada
marba hadduu waxa idin kulminayaa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullaahi yahay dhibka soo gaarayaa waa inuu ku damqo dheefta iyo horumarka uu sameeyana waa inaad ku faraxdid walow aad kala aragtid u wanaataan walow adu dowladahaad ku hoos nooshihiin siyaasad ahaan ha u dagaalsanaadeen mar hadduu qofkaasuu muslim yahay horumarkiisuna waa ku anfacaya dhibka soo gaarana waa ku dhibaya waxaa la rabaa inay isxiriiriyaan maxay isku xiriirin karaan waxay isku xiriirin karaan maalkooda iyo xoolahooda ayay iska caawin karaan waxay iska caawin karaan jaaha ummadda qayb baa waxaa laga yaabaa inay yihiin masmuucul kelim dad ereygoodu uu meel marayo oday beeleed suldaan ugaas boqor magac buu leeyahay bulsho dhan buu hogaaminayaa jaahaas iyo mansibkaas iyo jagada uu xambaarsan yahay waxaa la rabaa inay ummaddu intifaacsadaan oo muslimiinta wax ugu qabto oo uu ku xiriiriyo waxaa la rabaa badankaaga iyo jirka iyo quwada alla ku siiyey inaad muslimiinta ugu khidmaysid midka alaabta qaadi waayey midka adeega u baahan midka caawinta u baahan barigantaalka iyo baabuurka in la saaro midka u baahan midka baabuurkii u dhaqaaqi waad u riixaysid caawiyo jirkaaga iyo xooggaaga muslimiintu waa intifaacsadeen waxaa ka mid ah inaad muslimiinta ku anfacdid inaad u naseexayso hanuunisid hanuunkooda iyo islaaxooda iyo wanaagooda iyo hor u socodkooda inaad ka noqotid xubin iyo qayb ka noqotid waani waxbar wax u akhri khaladka ka qabo saxda ku dhiirigeli waxay culimmadu leeyihiin tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahari soo jeedku waxay leeyihiin dee hurdadii buu qofka u diidaa wal xumaana maxaa keentay hurda la'aani mar hadday kugu dhacday xanuunkuna waa imaanaya caawdhan haddaad soo jeedid hameen dambe soo jeedid waad xanuunsanaysaa jirkaa ku xanuunaya indhaha caag ku noqonaya adigoo dhan baa wax way xanuunsanaya dhibka walaalkaas soo gaarana saasoo kale uga xanuunso can الnucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama mathalulmu'miniina mu'miniinta tusaalahooda fii tawaadihim isjacaylkooda iyo wa taraaxumihim isu naxariisadkooda iyo wa tacaatufihim isu dhimrintoodu mathaluljasadi waa jir oo kaleeto hal qof jirkiisoo kale idaa goortii ishtakaa uu xanuunsado minhu jirkaa xaggiisa cudwun xubin tadaaca waxaa isugu yeeranaya lahu xubintii dartiisa saa'iruljasadi jirkii intiisii kaleeto bisahari soo jeediya walxumaa qandha iyo xanuun rawaahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu saadisu walcishruun xadiidka 26 can ibni mascuudin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu can innebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa xasada wax jamasho la yidhaahdaa ma jirto ilaa fi thnayni laba maahane kan koobaad waxaa weeye rajulunin aataa uu siiyey hu asaga allaahu alle maalan xoolo fasallata ilaahay wuxuu ku salliday hu asagii calaa halakatihi xoolihii baabi'intooda filxaqi xaqa uu ku bixinayo ku baabi'inayo iyo wa rajulunin aataa uu siiyey hu asaga allaahu alle xikmatan xikmad fa huwa asagu yaqdii wuu xukumayaa bihaa xikmaddiibuu wax ku kala saarayaa wa yucallimu wuu barayaa haa xikmadda annaasa dadka rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa wax xasadka horta xanuunka xasadka loo yaqaano waa xanuun xun waa qof barwaaqooyinka ilaahay col iyo cadow la-ah waxaa jira marka wax suuro xasad leh nebiguna xasadnimo uu ku magacaabay culimmaduna ay leeyihiin waxaa loola jeedaa waa qibdi iyo iqtibaad iyo jamasho qofku wuxuu jeclaysto ayib waxay culimmadu leeyihiin sida ibnuqayim uu ishaaray xasadku 4 qaybood buu u qaybsamaa 4 qaybood buu u qaybsamaa qaybta koobaadi waxaa weeye qof barwaaqo haysta qofku intuu arko inuu jeclaysto ilaahay qofkan barwaaqada inuu ka qaado aad buu u jeclaanayaa qofka ilaahay barwaaqada inuu dhaafiyo hadday caafimaad tahay hadday cilmi tahay hadday camal ilaahay waafajiyo fiican tahay caruur iyo awlaad iyo hadday tahay reer qurux badan iyo hadduu wax ku arko wuxuu alla yaa tan ka fura
barwaaqada qofkaasoo haysto wuxuu jeclaanayaa in la dhaafiyo meeshii doonaya ka dhacdo ilaahu dhaafi taasuu jeclaanaya waa xaasid waana xanuun aad u liita weeye nooca labaad oo xasadkaahi waxaa weeye inuu kii horoo kale sidiisoo kala jeclaado qofkan barwaaqadu haysta ilaahay inuu ka qaado laakiin wuxuu la dheeryahay wuxuu rabaa asaga in lagu soo wareejiyo kii horeeta meeshii laga ridaya laga ridu lahaa laakiin ilaahu yaa dhaafiya kana wuxuu leeyahay ilaahu waxaas intaad ka qaadid hebel aniga isii maxaa ilaahay qurux siiyey inuu yidhaahdo allow yaa ka qaado aniga qurux badnaysiiye maxaa ilaahay maal siiye allow yaa cayr ka dhigo aniga igu soo wareejiye maxaa ilaahay wax allaala wuxuu ku arko barwaaqo ah iimaan la'aan baa hayso wuxuu allow yaa ka soo wareejiye aniga igu rida haddii xataa la siiyana mid kaloo kasii qurux badanba allow yaa isiiya ayadana weligii ma gubanaya kan saddexaadi waxaa weeye inuu jeclaysto qofkan wuxuu haysto oo kale asna inuu helo weligiina qofkaasu asaga uusan dhaafin waa xanuunsan yahay laftirkiisu maalan wuxuu ku arkayaa qofkan wax fiican wuxuu leeyahay allo waxaasoo kale isii asaguna uusan halkaa dhaafin saan leebel isu ekaano anaan isu dhaafin wax yar hadduu dhaafo wuxuu leeyahay ilaahu ii soo celi waa i dhaafay isaguna waa xanuunsan yahayoo qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya ma naxariista ilaahay bay qaybiyaan mid baa ilaahay u badin mid buu alla u yarayn mid buu ku ciriirin mid buu u waasicin ma qaybisi bahasha adugu alla gacanta ku haya marka inaad jeclaatid inuusan qofkaani ku dhaafin laftirkeedu waa nooc xaasidnimada ka mid a xasadnimada afraadi waxaa weeye waa tan xadiidkan uu ka hadlayo walaalkaa wuxuu haystoo khayr ah waxaasoo kale ilaahay inuu ku siiyo inaad tamanidoo jeclaatid ama ha ku dhaafo hadduu doono ama intiisa ha u la ekaatayna dan aadan ka gelin waa tan xadiidkan uu ka hadlaya ma xuma waxaad ku aragtay maal badan asagoo leh si wanaagsanna maalkii u maamulaya masaajidda ku dhisaya ceelasha ku qodaya waddooyinka ilaamiga ku hagaajinahaya masaakiinta iyo agoonta wax ku baraya wixii wanaagsanabaad markaas waxaad leedahay ilaa uu xoolahaasoo kale isii allow yaa xoolahaasoo kale hela haddaan heli lahaa sidaasoo kalean annaguna ummadda wax ugu tari lahaa baad leedahay ajarkiisoo kalead helaysa aduguna insha allahu tacaala waana midda xadiisku ka hadlayo waxaad aragtay qofkii wax wanaagsan cilmi baad ku aragtay wax kalaad ku aragtay khayr baad ku aragtay caafimaad baad ku aragtay ummaddii ugu shaqaynayo ilaahu anigana intaasoo kale ise ummaddan wax ugu qabtay xasadnimada noocaasa marka iqtibaad baa loo yaqaanaayo mushkilo male iyadu waana bannaanta wuxuu nebigeennu ina barayaa marka sal alla alayhi wasalam qofku wuxuu haystee la jeclaysto oo la tamaniyaayey ma jiro ilaa laba ruux maahane oo la yidhaha ilaahu yaa heerkaa ku gaarsiiya kan koobaad waxaa weeye waa nin ilaahay xoolo siiyey allah xoolo siiyey ilaahay markuu xoolihii siiyey saddex eray baa meeshaa ku qoran fasallatahu calaa halakatihi fi lxaqi fasallatahu tasliidka waxaa loo yara waxaan maxaa igu salladayso lama yaqaan qofaad maaro isaga laadahay sallatahu waxay ku tusinaysaa qofkaani nafta bani aadamkoo ku dabeecaysan waxakrasho iyo inay waxhaysato iyo bukhli ku dabeecaysan inuu naftii ka adkaaday oo meel iska saaray buu xadiidku ku tusinayaa fasallatahu wuxuu ku salliday marka naftii waa ka adkaaday calaa halakatihi maxay ku tusin inuusan xoolihiisii wax ka reebinoo kulligood waddo saxa ku bixiyey filxaqi maxay ku tusinaysaa haddii la yidhahda hebel xoolihiisii waa baabi'iyey dad badan baa laga yaabaa inay suuraystaan inuu sigaar iyo qaad ku cunay ama daraagis kaleeta iyo xashiishad iyo balaayo ku cabbay laakiin filxaqi markii lagu yidhi halaagna horey loo isticmaalay waxay ku tusinaysaa xoolahan meeshuu ku bixiyey waa waddo ilaahay raalli uu ka yahay oo xaq ah ayuu ku bixiyey ninkaasu waa istaahilaa in la janto la yidhahdo ilaahu yaa ninkaasoo kale iga dhiga ninka labaad waxaa weeye waa nin ilaahay uu siiyey xikmad xadiiska qaybo ka mid ah ku soo aroortay xikmaddaas waxa weeye waa qur-aankii iyo diintii ilaahay diintii ilaahay baa marka inta ilaahay siiyey oo qur-aankii la baray wuu qur-aankii ku dhaqmayaa dadkana barayaa kuna kala saaraya xikmadda ibnuqayim asagu wuxuu yidhaahdaa waa qowlu maa yanbaqii fi lwaqti aladii yanbaqii qowlu maa yanbaqii cala alwajhi aladii yanbaqii fi lwaqti aladii yanbaqii xikmad waxaa la yidhaahdaa buu yidhi hadal ay habboon tahay in lagu hadlo qofku inuu adeegsado kow sidii ku habboonaydna uu u yidhaahdo waa labo wakhtigii ku munaasabka ahaana uu rido saddexdaas markuu hadalkaagu kulansado
wuxuu noqonayaa hadal la oran karo waa hadal xakiim oo wanaagsan oo xikmad ku salaysan waqtigu waa waqti munaasab ah la fiirsatay kayfiyada iyo qaabkaad u sheegtayna waa kayfiyad sax ah sidoo kale to hadalka laftirkiisuna waa hadal sax ah hadal sax weey wajigi wanaagsanaana waa la timi عن ابن مسعود وحل غوري رضي الله تعالى عنه عن النبي وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال النبي وحو يري لا حسد وحش ما شل يرهدا ما جرته إلا في اثنين لبر روح ما هنه كان كوباد وحو رجل آتاه دي اللي يرهدو لما ده waxay la mid tahay a'ta usi laakiin atah dii la yiraahdo wuu yimid wii ata usi hu asaga Allahu alla maalan xoolo maalan waa nakiro macrifo ma aha waxa loo nakireeyay xadiidku inuu ku tusiyo xoolahaas ilaahay siiya ama xoolo yar ha noqdeen ama xoolo badan ha noqdeen kala qaad male ilaahay umba xoolo siiyay fasallata ilaahi wuxuu ku saliday ninkii ala halakatihi xoolihi bixintooda xageebuu ku bixinayaa fil xaqi shayga xaqa ayuu ku bixinayaa dhexdiis iyo warajulun aataahu Allahu alla usiyay xikmatan xikmad quraan iyo diin buu alla baray waa faqiih fahuwa asagu yaqdi wuu xukumayaa biha xikmadii buu dadka ku kala saarayaa u kala axan maayo laalushqaata ma aha wayucallimu wuu barayaa haa xikmadii annaasa dadka wuxuu dadka wax u barayaa xaasid buusan ahayn alxadiidu 27 حديث كلباتن يتضباد عن حارثة بن وهب وحل غوري قال وحو يري سمعت وحان مغلي رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم يقول حال ليهي ألا أخبركم يانا إذن كورمين بأهل الجنة دتك أهل الجنة ورم إذن كسية كل ضعيف متكستو ضعيف ويان متضعف oo hoos isu dhigo daciif iska dhiga low aqsama haduu dhaaran lahaa cala Allaahi alla dushiisa la abarahu alla u baarinima samayn lahaa ala ukhbirukum yaanan idinka warramayn bi ahli naari dadka ahlu naarka ah kullu utullin mid kasto madax adag weeye jawaadin oo wax diidma badan mustakbirin ee isla weyn hadana rawahu al-bukhari wa muslim xadiidkani wuxuu ina dareensiinayaa horta ilaahay baa jannada abuurtay naartana ilaahay baa abuurtay mid walbeetana ilaahay wuxuu ugu talagalay khalqi ahlu naar iyo khalqi ahlu jannah labadooda uu kala talagalay sida awgeed baa waxa nabigeena ka sugan labadooda murmay jannada iyo naarta laftirkooda markaas naartu waxay tiri dadka ducaaf dadka xooga badan oo mutakabbiriinta ah ayaa aniga igalaya jannadiina waxay tiri anigana kuwa ducafada iyo masaakiinta ay galay ilaahi baa marka wuxuu ku yiri labadii nuba abuur anigu aan abuurtay baa tihiin mid walbo labadiina kamidana waxay ugu leedahay inaan buuxiyo ana idin buuxinayo labadiinaba marka jannadana ilaahi baa dad ugu talagalay uu ka buuxiyo ilaahi aan ugu daro naartana waxaa jira dad ilaahi ugu talagalay inuu ka buuxiyo ilaahi naga badbaadiyo laakiin waxaa jira tilmaamo ay leeyihiin dadka ahlu jannaha ah iyo tilmaamo ay leeyihiin dadka ahlu naarka ah dadka ahlu jannaha nabigu wuxuu ku tilmaamay kullu daciifin mid kasto taag daran daciifkan maxaa laga wadaa daciiful iimaan ma aha waa qof qawiyul iimaan ah laakiin bulshada dhexdeeda waxa laga yaabaa inaysan agtooda wax qiimo ka lahayn way iska liidahayaan waxba kama soo qaadayaan in meelaha shirarka iyo loogu yeero oo wax la weydiiyo oo ra'yigiisa wax dhan waxa loo arkaa waxaan macno lahayn agta dadka wax qiimo kama leh laakiin ilaahay agtiisu qiimo ka leeyahay waxaana muhiim ah inaad ogaatid waxa fiican ma aha inaad dadka agtooda wax ka noqotide waxa qiimaha loo waxa weeyay inaad ilaahay agtiisa qiimo ka leedahay taa baa muhiim ah adduunka dhan haday ku sacabiyaan laakiin ilaahay agtiisa adan qiimo ka lahayn sacabkooda waxba ku tari maayo ilaahay buu ka fogay adduunka dhan haday ku nicib yihiin kula dagaalamayaan oo ku karahsanayaan laakiin ilaahay uu ku jecel yahay قول الدنيا من آخر وضع هيسته كل ضعيف مرك قف كستو ضعيف حب ما هيستو سكم مسكين نلاشي سواها وصيصة متضعف يا متضعف لبضوا واسح متضعف هدي اللي يرهدوا عينك الله كسريه وحن قنا إياه روح إسلوين ما هن ضعيف لماذا هيسته
asaga isu geystay oo ma kibro ruux tawaaducaya hoos isu dhigaya masaakiinta la sheekaysan la shaacabahaya aan mutakabbir ahayn oo isla weynayn weeyaan mutadacif asaga marka dhulka is dhigaya ama mutadacafin haddii la yiraahdo waa la daciifsadaayo dadka adoonsado adeer xagga tag iyo hanala soo fariisan iyo na dhaaf iyo maxaa meeshan ku keenay iyo yaa kuu idmay iyo huruuf bayba ku wadaanba dadku low aqsama cala allaahi la abarahu ruuxa nooca dadku ay ula dhaqmayaan oo agtoodaba aan miisaanka ku lahayn hadduu dhaaran lahay oo oran lahaa wallaahi billaahi tallaahi caawa roob baa ilaahay keenaya dhaartaa uu ku dhaarta ilaahay u hirgelinaya caawa ilaahay cirka roob kusoo fasaxaya ilaahay agtiisa qiimuhu kala yahay darti adiguna waxa laga yaabaa albaabkaaga inaad ka xiratidba madfuucin bilabwaab albaabada laga riixo soco guriga ha naga imaanin yaanaan arkin la oranayo laakiin ilaahay agtiisa qiimuhu ka leeyahay low aqsama cala allaahi laa barra hada huwa almuhim waxa muhimkaah waxa weeye inaad ilaahay agtiisa saa qiimo uga leedahay yeeyihiin ahlu naarku kullu cutullin jawaab qof kasta oo madax adag xuquuqdii ku waajibtay diida mid uusan lahayna raadiya mustakbiru isla weyn qabqabtiisa iyo wax weyn aan maara loo helin kuwaasa ilaahay u talaga inuu naarta ku gubo sida awgeed iska ilaali kibirka iyo isla weynanka wuxuu nabigeenu sheegay dhurucasa wax la eeg oo kibir iyo isla weynana qalbigaaga haddii ku jirto inaadan janno gelaynin ma gelaysid jannada xabad isla kibrinaysaa miskiin baata daciif ah nin baa waxaa laga sheegahay intuu nin u yimid asagoo raba inuu u faantamo atacrifunii may taqaanaa si nacam waa ku aqaanaa si fiican kuu garanaya man ana yaan ahay wuxuu rabay inuu yidhaahdo soo ninkii reer hebelahayo laandheeraha ma tihid laakiin si kale ugu jawaaba wuxuu ku yidhi awaluka nudfa wa aakhiruka jiifa wamaa bayna dalika wicaaun lilacdaar intaadan hore waa candhuuf iyo ilin iyo duuf iyo qashin baa ka buuxabi qaybtaadan hore qaybtaada dambana saxaro iyo kaadi iyo qashin baa ka buuxabi labadaa inta u dhaxaysana waa boosaneer kaadida iyo saxarada lagu ilaaliyo anuu aqoon intaasaan ku leeyahay si fiicanuu ninkaasu ninkaa u yaqaana aqoon rasmi ah ayuu u leeyahay adoo marka sidaas inaad isla weynaato iskibrisido tiraahdid man ana iyo aad tiraahdid howlahaasi kuma qabtaan ayib can xaarithata bni wahbin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay alaa ukhbirukum miyaanan idinkaga warramayn biahli ljannati dadka ahlu jannaha ah xadiidku wuxuu ina tusinayaa dariiqada iyo waddooyinka dadka wax lagu bara waxaa ka mid ah in wax loo soo cardiyo mar ardaygaa su-aashu ka timaada yura sheekho waxa ii sheeg marra sheekha inta dareema baahideedu soo bandhigaa ma idiin sheegaa dadka ahlu jannaha ah inay ka codsadeen meesha kuma qorra ma idiin sheegaa dadka ahlu naarka ah weliba ereyga uu adeegsanaya waa baraarujin alaad waa xarfu tanbiih baa la yidhahdaa alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegin soo jeensta isoo fiiriya waa idiin sheegayaa weeye biahli ljannati dadka ahlu jannaha ah muxuu nebigu inoogu sheegayaa tilmaamahooda intaan barannay inaan iska raaraadinno kullu daciifin mid kastoo daciif ah waa daciif waa sheegnaa daciifkaas ama asaga inta hoos isu dhigaya aan muuqan ama waa qof iska maskiin oo baahan oon bulshada agteeda qiimo ka lahayn laakiin ilaahay caabuda mutadacafin oo la daciifsado oo la gumaysto oo la liido ama mutadacifin asagu isdaciifiyo hoos isu dhiga low aqsama hadduu dhaaran lahaa calallaahi alla dushiisa la abarahu wuu u baarnimo samayn lahaa waxaa dhacday anas ibni maalik nin adeerkiis ah baa gabar walaashiisoo anasna eedda uu ah iyo gabar kale inta dagaalamay bay ilig ka jabis qoyskii gabadhooda iligga laga soo riday baa waxay yidhahdeen annagu qisaas baan rabnaa gabadhaan inaan iligga ka ridnaan rabnaa anas adeerkiis baa wuxuu yidhi ilaahi baan ku dhaartay inaan laga ridayn waana saxaabi nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kitaabka ilaahay bay qisaasta ku taallaabi mar haddii gabadhii iliggii laga soo riday walaashaana reerkii ay yidhaahdeen waa qisaasanaynaa xal kale male baa lagu yidhi waa in iligga laga rido isaguna waa dhaartay ilaahay baan ku dhaartay inaan laga ridaynin markuu saa u dhaartay baa qolyihii waxay yidhaahdeen diyaan ku qanacsanna laa barahu soo meesha kuma haysid ilaahay baa u baarinimo sameeyey qolyihii qalbigoodu qanaaco geliyey waa ka tanaasul la yidhaahdeen qaybtii qisaasta ahayd oo gabadhaan iligga inaan ka tuurnaa waxaana ku qanacnay in magna la siiyo booskeedii low aqsama cala allaahi la abarahu ilaahay hadduu ku dhaarto alla uu baarinimo samaynaya alaa ukhbirukum miyaanan idinka warramaynin biahli naari dadka ahlu naarka ah kullu cutullin
qof kasta oo madax adag oo weliba diidmo badan oo kasteeta weeye jawaadin diidmo badan oo wixii ku waajibayna wuu diidayaa wuxuusan lahayna waa raadinayaa mustakbirin oo isla weyn rawaahu albukhaariyu wa muslim alxadiidu الثامن والعشرون xadiidka 28 can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama unduruu eega oo fiiriya ilaa man ruuxa asfala idinka hooseeya minkum idinka walaa tanduruu ha eeginina ilaa man ruuxa huwa asaguba fowqakum dushiinna ku sugan fa huwa arrinkaas kee cidda kaa hoosaysa inaad eegtid cidda kaa korraysan aadan u hanqaltaagin ayaa ajdaru ku habbooni badan allaa tasdaruu inaydaan liidin nicmatallaahi ilaahay barwaaqooyinkiisa calaykum dushiinna u yeelay rawaahu albukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey wuxuu nebigeennu u ahaa qof quluubta daaweeyuu ahaa quluubta bani aadamka ayuu daaweyn jiray sala allahu calayhi wasalam waxyaaluhu inaga daaweynaya waxaa ka mid ah bani aadamka waxaa ku dabacaysan inuu mar walbeeta sarraynta jecel yahay hadday cid ka sarraysa uu arkana inuu u hanqaltaago markaasaa nebigeennu wuxuu ina leeyahay xadiid xataa muslim iyo bukhaari bay wariyeen oo kanoo kaleeta baa jiro isla xadiisu abu hurayra ah oo nebigu uu leeyahay idaa nadara axadukum ilaa man fudila calayhi fi lmaali waalkhalqi hadduu midkiin arko qof ilaahay ka fiicnaysiiya xagga xoolaha iyo dhaqaalaha ama xagga khalqiga iyo abuurkaad waxaad aragtay markaad isfiirisay qof kaa qurux badan haddii aad qof sidaasa aragtid falyandur ilaa man huwa asfalu minhu mid asaga ka hooseeya asaguna ha eego markaad aragtid mid kaa qurux badan mid kaa foolxun baad arki markaad aragtid mid kaa xoolo badan mid kaa xoolo yar baad arki arrinkaas mar walba dadka kaa hooseeya inaad fiiriso waxay keenaysaa allaa tasdaruu nicmatallaahi calaykum ilaahay barwaaqooyinkiisa inaydaan liidin ee aad ku shukridid halkaasuu xadiidku wuxuu ina tusay xoolahan waxaa loogu talagalay in lagu cibro qaato laakiin iimaan la'aan in laga qaado looguma talagelin haddaad aragtid qof kaa maal badan qof kaa qurux badan qof kaa carruur badan qof kaa caafimaad badan imisaa magaalada kula joogta oo intaasoo dhan kaa liita adigana boqolaal masaajidkeenna sigiiska imisaa laga yaabaa maqrabkii cishaa inay kusoo tukadaan curyaamo soo ma tira badna waa curyaamo adna mid xoogaa kaa qurux badan baad le warkanu muxuu ah waa saa u fiirinaysa la yaabanta quruxdiisa kaa caafimaad badan kuwaana afartii oo xol balo oo addimadii o dhan la oo calooshaa ku gurguuranaya calooshaasi ku gurguuranaya gabar curyaan oo caloosha ku gurguuranaysaan maalin waxaan kusii maray gaarisa loo horteeda ayadoo maraysa weliba qaybtaan sokay ka sii gelaysa muddaan u malaynaya 2 saac ka bacdi baan soo noqda ayadoo weli sii socoto gaarisa loo aan ka dhex bixin waa 2 saac intaan meel soo marnay ilaahay baa garanaya oo aan meel ka soo wareegay sida awgeed markaad aragtid mid ku maal dhaama oo xogaa kaa hanti badan haddaad weligaa kaa ka fakartid walla hebel waa inaan soo qabta aad tiraahdi weligaa qalbigaagu waa gubanaya inaad ku fakartid hebel soo qaba ilaahina uusan kuguba talagelin baa laga yaabaa weligaa meeshiisa inaad gaartid laakiin maxaa ku anfacaya inaad aragtid hebel iyo heblaayo aad garanayso dhulka yaalla oo aan dabka shidan karin oon waxba haysanin oo aan shaqo haysanin oo dayacan oo dacdaraysan markaa kuwa aragtid baa nimcad aad haysatay kuu dhadhamaysa kasallee alxamdulilah laakiin weligaa midka kaa korreeya haddaad ku hamidid asagana inaadan gaarin baa laga yaabaa intaad haysatayna iimaankaa kaa tegahayo kuu dhadhami maaya wax kuu muuqda ma jirto ayib sida awgeed baa waxaa la rabaa qofka mu'minka ahi mar walbeetaba inuu ilaaliyo barwaaqooyinka ilaahay xadiid baa jira nebigu uu leeyahay aqilu dukhuula cala alaqniyaa dadka hodanka ah oo ilaahay xoolaha siiyo tanaadka ah u gelidooda iyo ka daba wareegidooda iska yareeya innaga waxaa laga yaabaa maalinkii intaasoo jeer inaan jeclaano inaan hebel oo boos la kulanno booskayga war booskaan muxuu yihi ma aanta dhoon laga daba wareegayo nebiguna muxuu ku leeyahay kuwaa u tegitaankooda iyo gelidooda yareeya maxaa loo yaraynayaa fainnahu axraa anlaa tasdaruu nicama allaahi casa wajalla taasaa waxay ku habboon tahay barwaaqooyinkaad haysatay intay kuu muuqdaan inaadan liidin alxamdu lilaahi tiraahdi
laakiin maanta boqor haddaad inta u tagto ku yiraahdo intaasaan maanta faa'iiday ilaahay dhaqaale siiyay oo shalay intaasaan faa'iiday waxa halkaas wax ii marayeen oo intaasoo waxba ii soo socda adduun iyo aakhira waa ku dhaafiya kaas caawa seexan maysi waxaad haysateen ku dhadhami maayaan waxa iyo wax ku dhowna midna kuma muuqdaan doomo iyo maraakiib baad raranaysa aadan haysan maskaxda ka shaqeynaysa maskaxdaada marka waa gubatay kuwa noocaas marka ka daba orodkooda iyo ka daba dhahableentooda wax weyn ha moodi wixii ilaahay ku siiyay ku qanac wax ziyaado u baahan tahay asaga Allah ku hayo weydiiso asbaabteedana la imo adduunyada dadka gacantooda ku jirtana waxba wax weyn u gurigiisa ka gali sida awgeed bi culimada qaar waxay yiraahdaan nicmadu saddex bay u qaybsantaa nicmo qofku uu haysto adoonkuna uu og yahay inay nicmo tahay barwaaqo haysta uu og yahay inuu barwaaqaysan yahay kow iyo nicmo la sugayo waa ka maqan tahay wuu sugayaa rajo ka qaba laakiin nicmada saddexaad waxa weeye waa nicmo uu haysto oo san dareensanay waxyaalaha keeni kara nicmada haysatay inaad dareemi weydid waxa kamid ah qof ka sareeya inaad u hanqal taagtay maanta oo dhan waxa laga hadlayaa wixii adduunyo ku saabsan laakiin wixii aakhirada ku saabsan qofka ku dhaafay oo aad tartanteen oo ka tagay oo salaada kaaga fiican oo jamaacada kaaga fiican oo kaaga fiican cibaadada oo soonka kaaga fiican oo quraan akhriska kaaga fiican inaad ka haweysatid oo tiraahdo Allah yaa ka soo kala noqdo oo aad ka daba shaqaysatid saad u gaartid falyatanafasil mutanafisun walhu ogoli waxa laga hadlayaa marka waa adduunyo عن أبي هريرة وحل قوري رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله رسولك الله وحيري صلى الله عليه وسلم انظروا إيغا إلى من روح أسفل إذن كهوسي منكم إذنك حق عافماتك عافمات دره دات تبنيسيد كوكا اللي تاجره فقري هدات كعباديسيد كوكا اللي تاجره فالحمى هدات كعباديسيد كوكا اللي تاجره dhibaato kale hadaad ka cabaadaysi caruur laan kuwan reer walahayn baa jira adigu wax laga reerna waa leedahay caruur ma leeyahay laakiin midaan reerna lahayn caruur lahayn baa jira marka nooc kasto noloshaadu tahay bulsho kale liidataa jirta taacooyinka hadaad xogaa ku liidatid kuwan muslimiin baa ahayn baa jira oo gaala ah tayib wala tanduruha eeginina ila man ruuxu asaguba fawqakum kurkiina ahaaday fahuwa arrinkaas cida ka hoosaysa inaad eegtid kuwa koranadan u hanqal taagin ayaa ajdaru ku habooni badan alla tasdaru iniidan liidin nicmatallahi ilaahi barwaaqooyinkiisa calaykum dushiina udiin barwaaqay rawahu al-bukhari wa muslim nicma waa mufrad mudaaf ah marka umum bi faa'iidinaysa waa barwaaqooyin الحديث التاسع والعشرون حديث كلاباتن يا سقالات عن ابن عباس وحل قوري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وحو صومر بقبرين لبا قبر بصومر قبر الصومالي محل وير هذا حبال مياه وصحوي بقبرين لبا حبالات بصومر قبر وعربي موقت لبا حبالات بصومر لبدا حبالات يعذبان لعذابي فقال وحير النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنهما لبضوض لا يعذبان والعذابيه وما يعذبان لون عذاب ما يفي كبير وحوين أما أحدهما متكود فكان وحوها لا يستطير مدان اسك أسطرين من البول كاددة وأما الآخر كان كالي فكان وحوها يمشي مد أسعده بالنميمة اسكو دريد دادك الله اسكو ديروه رواه البخاري ومسلم حديث كان أسوغو سيدان كفافاسا ووحاجره شيغيه نبي محمد وصحابة الله الصعودة فمالين صحابة وحي كدريمين عبسي ميدان مغلينين صوت واقب كسا نبي الله محاجره ما مغليسان مياه ما النبي الله محاجره قبور بي صومرين مركاسو ميشو وحان كمغليا بي قيلو داد قيلين ايه عباط ايه عذاب كجره لبدا قبر بي النبي صلى الله عليه وسلم وعذابين يهين قيلو دادان مغليا نبي وغرغريريا مركا صلى الله عليه وسلم هلكا عمعميسا ayaa dhaqaaqay uu gargariiraya wuxuu meesha ka maqlayo qeylada nimanka ka baxaysa markaas nabigu wuxuu yiri waxay u fududeed inay ka tagaan oo ay ka tagi kareen bayna u cadaaban yihiin labada qof mid ka mid yahay kaadida iskama asturi jirin kaadidoon la iska asturin waxay noqon dad waxa jira inta kaaca ayagoon ka istijoon ama ka qoriyeysan ama antiishi wax isticmaalin iska dhaqaajiya uu kaacaya ayadoo ka tifqayso dhaqaajin bahaaradiisa iyo hawsha uma taalo
ama markuu kaajay laftirkeedu meel inta ku kaajay kileetidii ku soo noqonaysa ku soo fafanaysa damba kama lehba waxyaalaha ugu badan oo cadaabka lagu muto waxa kamid uu nabigu sheegay kaadidu aan la iska ilaalin caamatu cadaab alqabr waxa ugu badan oo cadaabka lagu muto waa kaadida in la iska ilaalin waayo sida awgeed markaad kaajaysid meel munaasaba la raadso markay ka timaadana iska daahiriyo iska dhaq qof walaal muslima tahay qof ilaahay ku xiran noqo istijada iyo weysada iyo tahaarada ilaali taasi waa qodob cadaabka ilaahay baa lagu mutayo waa ku cadaabnaayeen labada nin ka mido qodobka labaad nin wuxuu ahaa diradirelow oo dadka isku dira waxay culimadu yiraahdaan qofka namiimka ah iyo saaxirka waxaa sii daran midka namiimka oo dadka isku dira dabadoolaha maanta dhan uu dabka la wareegay hebel baasaan yiri hebel ayaa saantiri hebel wuxuu ku yiri ma maqashay oo dadka isku dira sababtu waxa weeye midka saaxirka ah waxa laga yaabaa sixirkiisu hal iyo labo laakiin waxa laga yaabaa kanuu dirala u sameeyay bulshooyin dhan inay isugu halaagsamaan bulshooyin dhan qisay sheegaan ma aqaan inay sugan tahay in kaleeto nin adoon ah oo dirala oo dadka aad isugu dira baa ninkii lahaa wuxuu ku talagalay inuu isdhaafiyo suuquu keenay nin baa wuxuu yiri anaa ka iibsanaya markaas yiri iga iibso laakiin ogow nin aafaysan weeyaan bi iska ilaali ninkaas waa nin aad dadka isugu dira uu iibsada kii gurigiisu geystay suu gurigu u joogay buu ninkii soo iibsaday islaantiisii wuxuu ku yiri odagaagu kuma jecla odayga aan ku qabaaye kuma jecla ma rabtaa inuu ku jeclaado saytiraha markuu seexdo midi inta soo qaadatid iyo sakiin iyo wax la mid ah timaha garka kaga yaala kuwiisa hoose qayb ka mid ah ka jarjar bay ha ku jeclaanaya si fiican buu ku jeclaanaya waaye ayadii go'aankaas ay qaato waxay rabtaa odaygadu si fiican u jeclaado odaygiibu inta u tagay buu wuxuu ku yiri islaantan guriga ku joogta nin kale saaxiib la tahay inay nin kale saaxiib la tahay keliyana kuma ekee inay adiga ka takhalusay rabtaabi adiga ka takhalusaysaa waxaad ku garan lahaydna waan kuu sheegayaa caawa markaa seexatid indhaha isgelin bi is ilaali waardiye iska qababi ayadoo midi la wareegaysa aad arki doontaa bi kow inay kaaga siiso ninka kalena ay aaday rabtaabi hadda ma hurda ka soo go'aysa ninka hurda ka soo go'i mayso indhuhu isdaba dhiga qof hurdu iska dhiga haya ayadiina waa miskiin raaliya ah waxay rabtaa inay timahan hoose inta ka jarto garka oo hore ka jeclaado ayadoo midi la socota ayay timi garkeeba la soo aaday markaas wuxuu sheegay rubada kugu dhufanaysa intuu ka qabtay buu kow kaga sii wuu dilay reerkeedii baa waxay maqleen in gabadhii la dilay inta soo ordeen bi asagiina dilay labadii qabiil baa meeshii dagaal ka bilowday yaa bilaabay dirala bilaabay Soomaalidu waxay yiraahdaan dabkii munaafaqshido muslim baa ku gubta nimanka dhaqankaas dhaqan xun weey sida awgeed Imaam Ghazali wuxuu sheegay arin aad u qurux badan oo ah qof kasta oo war xun ku keena oo ku yiraahdo hebel baa sida kugu yiri ama hebel baa hebel saa ku lahaa mowqifka kaaga aadan ka muslim ahaan lix arimood baa kugu waajibaysa bi markii qofku yiraahdo hebel baa saan kugu lahaa lix waajib baa ku fuulaysa aad u dhageysa lixdaas Ghazali iyo qeyrkiiba sheegan raxmatullaahi calayh kow waxa kugu waajib ah warkiisa inaadan rumayn ninkii dhammaa oo warka kugu keenay hebel baa saa ku yiri lahaa hal xabo warkiisa ka soo qaadin sabab waa faasiq in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu sama faasiqna warkiisa lama qaato marduudu shahaadati weeye marduudul qawli hadalkiisa wax ka soo qaad ma leh marka ha ka rumaynin kow qodobka labaad oo waajibka kugu ah waa inaad ka reebtid maadaama uu munkar ku jiro ka hor istaago waxa tiraahdaa joog wa'mur bil ma'ruufi wanha 'anil munkari xumaatada dadka ka reeb wanaagana far wuxuu wadaa waa xumaato ka hor istaag joji ku dhahawshaas ka reeb asagii qodobka saddexaad oo kugu waajibaya waxa weeye waxaan uu la socdo oo dabadabaynta dad isku diridda ah inaad nacdid weeye dar ilaahina aad u nacdid sababtoo camalkan waa camal ilaahay agtiisa laga nicib yahay wixii alla nicib yahay inaad nicibaatidna waa qayb iimaankaaga kamid ah alhubbu fillahi wal bughdu fillahi baan ku soo maray soo ma xasuusta ilaahay darti waa inaad u nacdid ninkaas oo shaqada ula socdo qodobka afraad qofka walaalkaayo uu warka kaaga wado oo uu ku leeyahay hebel baa sidaa ku yiri qalbiga inaadan wax ugu qaban baa la rabaa
adoo nadiif oo meel iska fadhiya mid ku imaanaya wuxuu rabaa inuu cuqdad kuugu beero fulaan iyo fulaan markaasuu hebel wuxuu yidhi ma maqashay wuxuu kaa sheegay ma maqashay wuxuu kula maagan yahay ma maqashay qofkaa uu wax kaaga sheegayo innaba ha u leekaatee qalbiga waxaa ugu qabanin qofkaa walaalkaaya sababtu waxa yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda adanni imun malaha qaar ka midihi waa dembi ninkaana haadaanbuu rabaa inuu kaa tuuro dhag ha u raaricin ha ka yeeli ayib wax xumaanana ha u malaynin walaalkaagaas qodobka shanaadi waxaa weeye arrinkii uu qofka intaasoo qodob soo maray uu kuu soo gudbiyey baaritaan inaadan ugu dhaqaaqin oo aadan odhan goormuu igu yidhi shalay oo yaa kuu soo sheegay hebel telefoonkiisa ma haysaa haa igu caawi adoo raalli ah waxaad rabtaa intaad daba dhigatid inaad warkaas soo xaqiijisid inuu hebel sidaa ku yidhi markaasaa laga yaaba layn dheer inaad soo martid hebel baa sidaa igu yidhioo wuxuuna igu yidhi hebel baa ii sheegay arrinkaasu ma kaa soo fula waddo dheer baad gelaysaa lama ogola sabab qur-aanka alla wuxuu ku sheegay walaa tajasasuu baxfiga noocaasoo kaleeta ahoo xaqiijinta noocaasoo kaleeta lama ogola hay raacin ayadana qodobka lixaadoo ugu dambeeyaa waxaa weeye wixii asaga aad ka reebtay adigu ha ku qancinoo ha samayn asagii baad ka reebtay joog ilaahay ka baqu tiri laakiin haddaa inta tagtid tiraa niyow ninkii hebel ah saakayta war buu ii sheegay warkiina qub buu ii yidhi waa igala warkaas oo aad bilowdid inaad warkii sii wadwadid oo sidii banooniga aad sii tuurtuurtid maxaa se war reebaysa haddaad ugu dabaalanaysa qodob toddobaad baa jiro culummada qaar ka mid uu sheegeenoo waxay yidhaahdeen qof kasta oo dadka isku dira culummada qayb ka mid a martay xalaal kumuusan dhalin bay yidhahdeen war xaggee bay ka keeneen qofka dadka isku diraa xalaal kuma dhalan qur-aankay ka keeneen oo qur-aanka xaggee lagaga sheega cutullin bacda daalika zanim soomada arag dad baa tilmaama lagu sheegayay كل حلاف مهين هماز مشاء المعتد بعد ذلك أثيم مركي تلماموين بدل وشها ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم ها مركا كبعدنا وولد زينو محا كهرية نمان بو هدادكو اسكو ديري جيري مركا كبعدنا وولد زينو والبل هوشان هلا اسكا إلاليان نصب وحويان فرسوو قلينه hawsha noocaana bal hal iska ilaaliya rag baa halkaa ku tagay quraanka luqluq halkaas wax kala soo baxay dad in la isku diro waxooda laga raadiyo in waxa weeyaan xumahooda la baaro hawshaas hawl fiican ma ceeb adaa isugu filan qofka wanaagsanna waa qofka naftiisa ceebaheeda kaga mashquula dadka ceebahooda laakiin qof maanta dhan dadka ceebahooda baaraya hadaad aragtid asaga ceebaysan tayib wuxuu xadiidku ina tusinayaa marka oo aan ka qaadanaynaa labada dambi inay yihiin laba dambiyo waaweyn oo kabiira ah labadaanin waa muslimiin bay ahayn mise gaalo culummadu waa isku khilaafsan yihiin qaybna waxay leeyihiin muslimiin bay ahayn qaybna gaalo sida raajixa inay muslimiin ahaayeen way sababtu waxa weeye hadday gaalo ahaan lahaayeen kaadi uma cadaabnaaneen lahayne gaalnimada ka sii weyn kaadida hadday gaalo ahaan lahaayeen dad bay isku direen lama yiraahdaan waa u cadaaban yihiin dambigooda gaalnimada la sheegi lahaa laakiin in la sheegay kaadi iyo dad bay isku direen waxay ku tusinaysaa inay laba nin oo muslimiin ahaayeen qaar baa waxay yiraahdaan laba nin oo saxaabiyaal ay ahaayeen oo rag akhyaar waliba ku sheegay wax daliil oo khaas ah ma leh masaladaas waqtiga dhamaaday wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi